wakaaladda wararka Kilwa Media ayaa magaalada Qardho ku booqatay qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay daadadkii ku soo rogmaday magaalada Qardho. Halkani waa geedkii Quranyaale ahna guriga ilmo Cismaan Cumar Jinoole oo agoon ah, waxaana u dhaxeeya xarunta shirkadda Golis iyo beerta Salacale. Axmed Cismaan Cumar oo ku magac dheer Abati ayaa ka warbixinaya khasaaraha soo gaaray gurigan. Hadda waxaan la joognaa dad qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay roobabkii daadadka ahaa ee ka dhacay magaalada Qardho. Sodow أو دوه ولا magacaaga أحمد عثمان عمر بالليلة Axmed Cismaan Cumar halkaan joogno waxa galay هلا كنا جونا وجرو المع عثمان عمر جنولة قيبت كده من سقران ياله مش أنا أركتان هدر وحنو دقن جولس بيفر بدن أيا صدعي الحمد لله عندنا كمان دمن لكن وحلي وحي هلا كان دربي يو حافظي يو آج هاي ودن بدي كدر إنسان وجدان دنا عن لامجة يدنا كان كلا حق جولسه markii hore anu xaafadda waan ka maqnaa walaalahay baa ku nool agoona way soo waceen waxay dhaxay xaalad baan ku jirnaa noo imow hadaanu imo dhinaca meeladan soo istaagana waxaan arkay biyo aan ka gudbi karin markaan arkay goolis darbigeedii oo dumay ayaa waxaan u tagay taliya qaybta waxaan ku yiri xaaladaasan haysata wuxuu noo soo diray gaariga cagafta khayr Allah siiyo gacayte oo cagafta dooda hoos wada ilmihii cagaftii baan waxaanu kaga saarnay meeshaan aad u jeedaan kadibna dalcadda stage ku geeyay kadib xaafadii ayaanu qaaday marka waxa weeye waxa dhacay khasaaraha ay u jeedaan oo de warin dhaadhaama marka u sharax dadka halkan waxa ka dhacay saxiixin halka waxa ka dhacay roob aad xoog weyn ayaa daad ayaa ku soo rogmaday markii horena waxa weeye anagu goolis baan darisna la ahay darbigeed ayaa jabay darbigii iyada misna dhinaceeda naga xigaa jabay labada iyadii darbiba iyo darbigoodiba baday ku dareen waa kuwa halkaas ay dhagaxoodii tuunsan yihiin waan gartay marka waxaan rabaa maxay tahay marka walaal khasaare aan ahayn inaad guriga u dumay labada darbi israaceen gudihii bannaan yahay laamiga idin ka horeeyay Quranyaale iyo maaladeen u dhaxeeyay laftigiisa dhaawac weyn soo gaaray ma jira khasaare intaas ka badan anoo inta u jeedaan ba khasaare noo muuqda guriga suuligiisii haddaan mar caruurtii iyo nafti ka badbaadin alxamdulillah anoo horta waxaan macnaha ka sii hadalnaa waxa weeye wax buuran maaha meesha waxa ka dhacay waa khasaaraha aad u jeedaan dhammaan dadkii meherada deganana way ka carareen gurigii iyo deerkii iyo dhinacyadiisina waa ay dumeen waa u jeedaan inkastoo xaaladii isbedeshay sida indhaha way qabanayaan nin awalna toga daris ayaa la ahaydeen maxay tahay fariinta aad u dirayso guddiga gurmadka Puntland oo dhawaan madaxweyne magacaabay iyo guud ahaan shacabweynaha Soomaaliyeed guddiga gurmadka waxaan u diraynaa wixii ay arkaan oo khasaara oo soo gaaray oo loo jeedo waxay ka qaban karaan oo kalaankooda ah way nagu caawinayaan diyaar baan u nahay oo dhinacayaga waxaan fariin ugu gudbinaynaa inay arinta wax nooga qabtaan guddiga madaxweynaha hawshan u xilsaaray ma idin timi haday idin yimaadeen wax kale oo badda ma la idin sheegay hadda saxgil ku sugan yihiin ciyaalka gurigan deganaa agoonta ah bismillaah horta dawladda waa bogaadinaynaa way noo soo gurmatay cagaf ayay kaga saartay caruurtii meesha ku noolaa guddi waa noo yimi maasha Allah meesha nagu soo booqdeen way arkeen waliba waxay wateen waraaq computerized oo ku qoran yihiin qofka magaciisa in xataa ay jirto qof handicap oo abnormal ah kulliba waxyaabahaas oo dhaweyna weydiiyeen khasaarihiina way arkeen waana diiwaan galiyeen waxayna noo sheegeen in insha Allah wax laga qaban doono arinta fariinteedana ay gudbin doonaan dadka deganaa waan ka saarnay waxay joogan xaafad waxaan u soo kireenay ku dhow beeyada Qardho halka ay hadda ku nool yihiin oo guri halkaas oo kireen waa 10